بالفرحة نحيي كل من جاي يهني، بالفرحة نحيي كل من جاي يهني، ونزف التهاني لك يا أحلى عريس، ونزف التهاني لك يا أحلى عريس. بالفرحة نحيي كل من جاي يهني، بالفرحة نحيي كل من جاي يهني، ونزف التهاني لك يا أحلى عريس، ونزف التهاني لك يا أحلى عريس. شيخ يونس آدم بوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جزاه الله خير الجزاء. قراك إنه فرفري شيخ يونس شيخ آدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، مرت شرفت قيمها بدن علماء وضيال دليرو ducaad iyo gabdhaba dadka isugu yimid masaajidkan Basila Helsinki Islamic Center. ilaahay baa isugu keenay meeshan dhammaantiin. waxa ina wada casumay Muuse Seeraar iyo wiilkiisa gabadha ka soo doonay iyo odayaasha dhan walba. marka mahad baan u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. thumma iyagana waa u mahad celinaynaa meeshaan qiimaha badan iyo sidaan qiimaha badan ay isugu keen yeereen intii ajiibtay dhammaanteen. iyaguna aad bay u mahadsan yihiin. miisaankooda xasanaadkana Allah u saaro dhammaanteen. waxaynu isugu nimid wax soo jireen oo islaami ah oo ah wixii nabigeenu ina yiri sallallahu alayhi wasallam. ma xadiidkii macnihiisu ahaa war hadduu idin yimaado wiil aad u bogtaan akhlaaqdiisa iyo diintiisa, gabdhihiina u guuriya. haddii kaleeto fitan iyo fasahaad baa adduunka imaanaya oo camimaya. inaguna islaam baynu nahay, taasaynu ku salaysannahay dhaqan islaami ah oo soo jireena. wiilkan iyo gabadhan, wiilka muxuu magaciisa Khaliif iyo Umul Khayr. wiilku horay buu reerka ugu yimid, waa la isweydiistay, si sharaf la isugu soo dhaweeyay, waana la siiyay gabadhii. odayaasha labada dhinac iyagoon meel dheer kala jirin, haddana sidii sharafta lahayd ee qiimaha lahayd bay isugu yimaadeen. si qiimo lehna way isu siiyeen. innagana waxay inoogu yeerteen inaynu la noqonno oo aynu u noqonno markhaati, aynu u wada noqonno inteenaas oo ducaad iyo culimo iyo cid walba leh iyo odayaalba. waxaan leenahay maadaama de horay la isu soo siiyey, innagana markhaati ahaan aynu meesha u nimid, عزمات iyo sharaf iyo qiimana la inoo yeelay
innaguna aynu casimaad iyo sharaf iyo qiimo u yeelno aynu ka soo qayb galno si fiicanna ugu ducaynay hadal badan haan lagama buuxiyo dhammaantiin soo dhowaada waxaynu wada gudogelaynaa insha allah barnaamijku wuxuu noqon doonaa culimada oo samayn doonta kelimad iyo meherkii odayaasha labada dhinac gabadha abtiyaasheed iyo wiilka adeeradiis oo mid walba kelimad jeedsada iyo khatimaadii oo ah wixii culimada ilaahay ka garansiiyo waajibaadka halkan lagu qaaday wiilkii iyo gabadhaba iyo inteena kale to kelimadii ay nooran lahaayeen anigoo aadan sheekh xasan sheekh cabdiraxmaan afguriye iga raali ahaada haddaan hadalka jajabiyey waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh sugulle bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha allah kuma dheeraan doono waqti dheer bay dadku sugayeen sida uu sheegay ilaah baa mahad iskale subxaanahu watacaala mahaddaa dabadeed waxaa mahad iska leh eheladaas adeer muuse iyo maaragtay reer muuse seeraar iyo khaliif oo iyaguba iyo eheladiisa intuba nagu marti qaaday gogashan qiimaha badan marka waxaan keliya rabaa sheekh cabdiweli ayaa hawsha fulin doona inaan isxusuusino un insha allah markii hadhow hadallada aan qaadanayno in goobta aan joogno ay masaajid tahay goobtu goobihii hore ay ka duwan tahay sidii maaragtay markii qolalka la isla joogay aan la isu kaftami karin raggu marka waxa la haro gabdhihiina gadaal bay naga maqlayaan marka intaas oo dhan inaan xusuusiyo insha allah waxaan hadda ku soo dhaweynaynaa mar haddii hawshii soo dhammaatay sheekh cabdiweli sheekh maxamed xaaji yuusuf imaamka masjidka in uu noo sameeyo hawshii meherka ahayd haddii ilaahay yiraahdo marka sheekh waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله هل كانوا حكا قد قلي دونا إن شاء الله تعالى هوشان لو فديو مهركن يسكو حلالينتن لبدن دلينيرتا خليف إيو أم الخير إيضو موسى سيرار ويوكاشي ولايدي إن أنكو مهريو خليف أيان كقد قلي دونا هل كان خليف أزوجك أم الخير موسى بوكالة وليها إياي بمهر قدره 3000 يورو أقبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور بهذا المهر المذكور 3000 يورو intaas ayay ku dhan tahay mehrintu waa kelimada fudud oo ah carabina waa lagu mehrin karaa soomaalina waa lagu mehrin karaa walow carabiga ay culimadu in badan oo kamid ah ay jecel yihiin in lagu sameeyo oo qofku laga daba dhaho
haddana soomaaligii waa dhacdaa oo wax mushkila ma laha culimmadu waxay leeyihiin labaduba waa lagu samayn karaa walidaalika kelmaddii meherkii intaas ayuu ku dhammaaday waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu ka dhigo reer khayr qaba reer soo biiray barwaaqo iyo nicmo iyo maxaa la yidhaahdaa awlaad ubad khayr qaba dad maxaa la yidhahdaa sakan iyo raxma isku noqdo inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka dhigo mikrofoonka waxaan ku wareejinayaa sheekh aadam falyatafadal waxaanu leenahay bismillaah baaraka allaahu lakum wabaaraka calaykum wajamacakum allahu fii khayr ow bikhayr ilaahay gurigaas guri khayr qaba oo si khayr qaba muslimka ugu soo biira oo bulshada islaamka ku soo kordhiya ducaad ku soo kordhiya ilaahay inuu ka dhiga baan ilaahay uga baryaynaa meesha barakaysan ay la soo niyeysteen ee masaajidka ay ku qabsadeen sida ay u niyeysteen niyadooda ilaahay inuu ku siiyo oo awlaad barakaysan iyo guri barakaysan oo khayraysan ilaahay inuu siiyo baan ugu ducaynaynaa aamiin insha allah hadda waxaynu gudagelaynaa dhankii odayaasha kelimada ugu horeysa waxaynu siinaynaa makaanada abtigu leeyahay qiimaha uu leeyahay abtigu waynu naqaanaa fil islaam bulshadeena islaamka ee Soomaalidana aad bay u qadariyaan abtiga ayaan ku soo dhaweynayaa xaaji faarax kelimadiisa bismillahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad sayyidina muhammad mawlana muhammad ilaahow inagu anfac ducada iyo quraanka ilaahow inagu anfac reerka aynu dhisaynana ilaahay waxaynu u baryaynaa ducada aynu ducaynay in ilaahay u aqbalo kii lagu baraare ee lagu barwaaqoobo ee lagu nasto in ilaahay inooga dhigo caruurta sidaas aynu uga ducaynaynaa alxamdulilah dee haddii lagu soo dhaweeyo abtinimadii waan qaatay alxamdulilah markaa wiilka inanta guursaday waan abtiga u ahay isagana adeer baanu ahay maasha allah labada caruura markaa waxaan la dardaarmayaa wiilkayga halkan waxaan wiilka baryahan dhaqankii dee ayaan doonayaa inaan yar uga qabto dhalinyarada halkan markaa imanka aniga abtiga baa yarad baal maanta leesiiyey yaradka waxaa leesiiyey suuryada iyo fadhiga ah muuse seeraar wuxuu yarad iiga siiyey haddii ilaahay ka dhigaayo inuu igu soo dhaweeyo halkaa isagoo markaa yaradka dadku waxay u qaataan xoolo dabada laga wado lo geel ari ma aha yaradku waxa weeye xishoodka ixtiraamka haddii ilaahay ka dhigaya booska qofkaasi leeyahay markaa muuse seerar waa kaa gudoontay yaradka wiilka inanta iga gursanayna waxaan doonayaa insha allah isaguna ixtiraamka kuwa dambe abtiga u noqdo doono iyo awoogaba inuu isaguna halkaa ka sii wado inta uu nool yahayna lagu leeyahay xishoodka iyo ixtiraamka yaradku ku jiro hablahana sidaasaan doonayaa insha allah kuwa hore u hayay iyo kuwa guursan doonaa waad arkaysaan maadaba abtigu marka alxamdulilah dee sidaa ugu soo dhawaada sidaana u yarad bixiya hana maysodhanina wargeel iyo adhiya lacagtoona ma wajada maxaad abtiga ugu yeedhisa qiimahaasaa meesha ku jira faraha badan ee ballaaran aniguna aad iyo aad baan uga faraxsanahay odayaasha kalean uga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ahaya adeeraduna way badan yihiin abtiyaashuna way badan yihiin kolley mid un baa u qaadi lahaa maaragtay booska in badan baa la fadhiyey waana meeshu waa kulushahay marka waan soo gaagaabsanaynaa insha allah nin walbana wuu jecel yahay inuu hadlo laakiin waxaan ku soo dhaweynaynaa waaya sheekh maxamed axmed بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك الله على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد مهد إلهي بعد إسكاله الحمد لله رب العالمين إلهي سوكا كان ميشن رج يضمر وضيال دلنيرو عرور مركز كان خير كقباء أو إسلامي كسكس إلهي بعد سوكا كاني waxaynuna isugu nimin sidii culimadu ama
ama odayaasha horeba u sheegeen waxaynu isugu nimi wax ilaahay raalli ka yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidii wanaagsanayd oo idinku dhacday ay inoogu wada dhacday ayaan insha allahu tacaala idinku mahadnaqayaa dhammaan haddaba walaalayaal meeshani waa markaskeeni islaamiga waa masjid meelihii lagu kaftami jiray ma aha wanaagiina waa inoo dhammaaday hadalka waxaa la yidhaahdaa maxaa hadhay hadal ma hadhin odayaashu waa ay dambaysiiyeenoo dee wax hadala ima ay reebin waxaanu keliya oo aan ku darayaa ducadii baan kusii xoojinayaa in ilaahay isu barakeeyo reerkaas ilaahay quluubtooda isu hagaajiyo iyaga iyo wixii ishaya oo hadda wada jooga waxa inagu soo socda oo insha allahu islaamku maalin walba way isguursadaa in ilaahay quluubteenna isu soo jeediyo haddii aynu dalkii jirno iyo haddaynu halka joognaba in ilaahay xaqa ina tuso oo ilaahay quluubteenna isu soo jeediyo oo ilaahay dad walaalo isjecel inaga dhigo baan ilaahay ka baryaa waridna aamin dhahaya in ilaahay sideenii hore berigii ayn gumaystu ina haystay sidii Soomaaliya ahayd oo ay isu jecelayd in ilaahay isugu soo keen celiyo been ilaahay ka baryayaa ilaahay saasan ka baryayaa waana iga daacad waligeena waa ka bari jiray idina aamin dhahaya oo daacad iyo run idinkoo sheegaya dhahaya aamin dhahaya wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh أنا أدني ديبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قلنا كلمة بنتورنا يا وان سلام يا خيارته يدكودان marka u horeysa anigu waxaan ka bilaabayaa oo aan u duceynayaa in Ilaahay barakeeyo culimada masaajidka gacanta noogu haysa aamin dhaha sababta waxa weey daarto khali waxba tarimayso hadan nin wax noogu sheegaan hoos joogin sida weeye ka bacdi waxaan u mahad celinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay waxaan anigu kelmadda u qabsaday telefoonka wiilka in adeerkay guursaday inaan u sheego Ilaahay walaal ha ku barakeeyo gabadha aad guursatay waxaan ku sheegayaa gabadhan halkan ay ku kortay diinta ku baratay macallimiinteedii baa ku siiyay oo waa kuwa dhinaca fadhiya ehel labadiiba waa dabaqday tii xadiisku sheego leeyiri warta diinta la kaxayso waad heshay ehelkiina waad heshay oo dareer musa seeraar oo ma sha Allah reer aad u khayr badan baad heshay wala waxba la kala hayn isku mid tihiin Ilaahay ku barakeeyo deewaad foostay mabruuk baan ku leeyahay waanana waa soo dhaweynayna insha Allah sida ugu duceeyay si khayr badan ba waa ugu duceynayna waana jirtaa labada dhinacba wiil iyo gabar ba inay dad qiimo badan ay yihiin wiilkuna uu dad diineed doortay wiilkuna wiil diineed u yahay hadda gunaanadkii waxaan ku soo gabagabeynaynaa kaftankii iyo wixii qulubta inay nooga dhaqaan culimada inooga dhaqaan oo kalimadii noo jeediyaan insha Allah Sheekh Abdiwali guurka iyo mas'uuliyadda iyo hawlaha laga rabo waxaan insha Allah siin doonaa Sheekhana al-Fadil Sheekh Abdiwali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال ومناسبة يقوب في عن وحنفلا يا وحوغا وإذن كل يرين دونا ما دام مسجدك وكدع يا راسكو إن لك لفائدة واختيا فسحنا اللي dadku meel ay u ordayaan malahan waxoogaa inaad noo dul qaadataan oo daqiiqado 25 daqiiqo ayaan qaadan doonaa insha Allah taala kelmadda aan ugu talagalayna qaybteedu badan waxay taaban doontaa guurkan iyo munaasabadan iyo waxa la midka ah maxaa yeelay munaasabad walbo hadal ku haboon ayaa jiro munaasabadan marka hadalka ku habooni waa in iyada wax laga yiraahdaa wixii kale marka lagu kabi karo ama la raacin karana in la raaciyo asbaabta keenayso inaan aad wax uga nirahnana waaqica aan ku noolnahay maanta marxaladda aan ku noolnahay waa marxalad iska adag waa marxalad aad u malaynayso in guurkii daayartii wiilal iyo gabdhaba in waxoogaha caqabaad ay iska jiraan caqabaadkaasi iyo culeysyadaasi ha noqdaan kuwa xaqiiqo ah ama kuwa iska dhaadhicin intaba walidaalika waqtiga aan ku jirnana waa zamankii zamanul fitna zamankii fitnadu la soo bandhigayay quluubta loo bandhigayay meel walba ay fitantii ay yaacayso ay taagan tahay haddaanan marka ubadka jiilka soo koraya aan lagu badbaadinin aan xayndaab looga dhigin lagu ilaalin in lisku fududeeyo
guurkana la sahlo wax badan baa inaga kharibmaya oo maxaa yeelay guurku waa qofku wuxuu u yahay ilaalin buu yahay walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday qofkii ilaahay zawjo fiican uu siiyo guursado ilaahay wuxuu u dhowray uu u xifdiyey diinkiisi kala bar falyattaqi illaaha fi nisfi alaakhar qaybta kale ama kala barka kale ilaahay uga baqo bimacnaa wiilka ama gabadha dhalinyarada ah ee guur xalaala sameeyeen diinkii kala bar baa u ilaalsamay waxaan raadinaynana waa maxay ubadkanagii inay diinkii qabsadaan inay inoo badbaadaan inay waxaa weeye waddo saxa ku socdaan waxa keenaya waxaa qayb ka ah guurkan in la fududeeyo oo la sahlo guurku walaalayaal waa amar rabbaani ah waxaa la amray qofka guursanayana waa la amray awliyada dhaleen ubadkana waa la amray ولذلك الله جل جلاله وحوت المامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء وحد قرستان دمركه كوذا وناكسني كان كوذا إذن وناكسنا هذا قرسدا أيال يردتك رجع أيال أمريا فانكحوا وأمروا أوليادنا والله أمريو أبي هويو intii wilaayada lahayd iyo intii qaraabada ahayd ama intii ay wax ku xirnaydba inay fududeeyeen baa la amray oo waxa la yiri wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum war u guuriya kuwa guur la'aanta ah oo wanaagsan ay idinka mida u guuriya cid la amray waa maxay waa awliyaa umurki waa dadkii talada ay ka gooday walidaalika markaan Yurub joogna kuma sii jirto arrinku waxaad moodaa inay u baahan tahay in wax badan laga bedelo oo siyaabihi hore loo fakiri jiray ama dhaqanka uu ahaan jiray ama la soo ahaan jirayba waaqica iyo bi'ada la jooga ayaa wax badan ka bedelaya walidaalika guurku walaalayaal waa sunankii anbiyada ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية رسوشي وحلو سمي الله سبحانه وتعالى منك وكما نشيغنا وحكمدها إنه حاسس يجور وسميي وأسباب تكمد الرزق هذا وحلو عذر دارتا قفك إنه سمح به سن دليرتها إن عليس جرتو نكن شيد كه محل هذا أم بنفتي سن وحبه وهلنين وحسود دوني حقوق قبل جينيا شيء كذا صار آخرين يسمعها السجا سبب رزقك فرفرية آيات دي بقى إذا تصينيسو إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هديهين كوا فقراء كوا وحبه سنين كوا العقل أنا إذا قالك عبنا يهديهين ألا أياه هذا كديجي مركي أي جورسدان أيو الله سبحانه وتعالى وتلمامي وحكم إذا ولا لي الأسباب تيسو إنه يهي أولاد يأبد كأن رادين إن القبوس جاهي يترن كني ينصل جاني إنه سيجرو وحقيب كنقنية إن وحي فضلنا أجور كلا سهله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ألا وحدتك أقومنا شيئا يكمتا إنه دمر إذين أبوري الله سبحانه وتعالى دمر كاسنا وإذين كأرزاق وإذين كسينا يأبد وناكسن ها وما حيكوا أدشين ودبركينا كسو قاي يكوا أوتهين ويجي سيتر ميان أيو الله سبحانه وتعالى إذن كسينا ولذلك قفكو رنتي وحو كفر حوي مركو أركو أبدكي ودالي وهرتي سجوغو أبدكي أبدكودي مركو سي أركو وح إندوه أيكو قبو سدان ويو شرعي وآد أبوريي ولا ليالقوركو وسكن وحسلوني قلبي والنحريس والدجنانشو ومسؤوليات وقفك حياتي قيمة أي أسو كردينيسا ولذلك قال له كعبر إن آياتك إلهي كمتا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وحو الله أسمي دمرك إن أتكو حسشان نفتينا يكدكتو لحديننا وحو لغينا حريس يكالقعل أيو لحديني لغي أيو الله تلمامي ولذلك علم باريستا معاصر كيمان تعصب xilligan aan joogno ee cilmigii uu hormaray waxyaalaha ay proof gareeyeen ay soo saareen waxa kamid ah guurku inuu u yahay daawo cudurro badan oo psychologiga iyo maskaxda iyo stressyadan iyo dhibkan oo dhan inuu qayb u yahay bal cudurrada qaarkood oo faafa iyo kansarka iyo wax la mid ah xataa bay sheegeen inay uu daawo u yahay oo qofka aanan reer lahayn oo cudurrada kale uu ku dhaco wuxuu u badan yahay bay dhan halis ugu jira inuu ka degdeg badan yahay ama ka cumri degdeg badan yahay kuwa kale ee reeraha leh ee sidaa waa maxay ku ilaashan walidaalika Allah subhanahu wa ta'ala aaya markuu ka cabirayo min aayatihi
markuu ka cabiraya min aayaatihi ay tahay qofka wax isaga caafimaadkiisa uu ku jiro wax uu ku jira maxaa la yiraahdaa niyadiisa iyo qalbigiisa deganaanshihiisa xikma rabbaaniya ayaa ku jirta oo culimada maanta tibbiga ay soo marba dhinac ka eegayaan walidaalika qiimiga iyo ahmiyadda ay walaalayaal ay u leeyahay barnaamijkani allah wuxuu dhexdhigay dhaxal buu dhexdhigay labada ruuxa isguursatay isku cusub ee nolosha isku darsatay xuquuqda weynanka ay la eg tahay midkood hadduu kan kale ka hor dhinto inay isdhexlayaan oo xoolihii hantidii qayb ka mida isaga u guurayso ama iyada u guurayso ayaa ka mida weynanka iyo cadiimnimada arrintani shareecada uu siiyey si gaar ah ayaa dhalinyarta loola hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa macshara ashabaab وردلنيرو من استطاع منكم الباءة فليتزوج روحي كره جور روحي أو ذا جور سدو باء علماء وحي كفسران إنه ليه هي هوشا جور كي وحا كرتب ما إنه كسو بحي كرو نين أود ولا ويهي مد دقالة يمد نفسي يمد محلي معنوي انتبه إنه كسو بحي كرو جور كاسي باشرطية والدين تنوال الله الله وحال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هدو إذين ماذا عداد رالي كتهين دين تيسا يدبع عديسا يدقن كيسا أتكوك لسونتهين أقوريا إلا تفعلوه هدينا سيدا يلم حد عيو تكن في الأرض فتنة في الأرض وفساد كبير رولكو حكد عيا فتنة iyo fasaad weyn ayaa ka dhacay hadaa sida yeeli weysaan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika walaalayaal adadkeynta wax la adadkeynayo in la yareeyo oo waliba in aad loo sahlo ayaa la doonayaa nabiga markuu ka warramay dumarku afar baa loo guursadaa waxa loo guursadaa quruxdooda loo guursadaa nasabka iyo xasabka ay ka dhalataa loo guursadaa maalka ay leedahay xoolaha ay leeyihiin baa loo guursadaa diinteeda loo guursadaa inta waa inta curfiga dadka أي دمر كي أجور سدانا أراديان لكن النبي وحوت المامي فاظفر بذات الدين تربت يداك وما حي واحد كو دكتا أما قبستا وأتكد دا شامد الدين تأو صاحبك قعنت هذا وما حي سنقول درسانينه إيدا سي كد دال أيوت المامي ولذلك وحيالها أنك إيجي إنه runtii aad isleedahay xilli hore in laga soo guuray bay ahayd laakiin wali waa jiraan mararka qaar waxa arkaysaa dadyo waa maxay siyaabo un fudud la isugu diidayo walidaalika sharciga islaamka markuu muwaasafaadka ka hadlayay ama ragga lagu guursado ama dumarka lagu guursado iimaanka la shartiyay iimaanka ayaa la shartiyay fi suurati al-baqara waxa ku jirtay wala tankihu al-mushrikaati hatta yu'minna warha guursanina kuwa mushrikaadka ee gaalada ilaa ay rumeeyaan mid adoon oo muslimada ayaa ka khayr badan walow midda gaasha ahi quruxdeeda haba idin cajabisee midda gaasha ah quruxdeeda haba idin cajabisee waxa ka khayr badan tu muslimada oo adoon oo aan quruxsanayn ayaa ka khayr badan sidoo kale waxa li wala tunkihul mushrikiina ha u guurinina kuwa mushrikiinta ay ragga gabdhihiina ha siinina maxaa yeelay walow acjabakum haba idin cajab geliyaan dhaqaalaha hantida aqoonta ay leeyihiin quruxda ay leeyihiin haybada reerka ay ka dhasheen kullu hada cibro ma laha waxaa la yidhi waxaa ka qayb wala cabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum ha addoon aan quruxsanayn baa ka khayr badan midka gaalka ah ayuu qur-aanka cabiraya qur-aanku wuxuu cabirayaa walaalayaal wasfa tiib wanaag buu ka cabiray walidaalika waatayibaatu للطيبين والطيبون للطيبات رجا وناكسن وحيليهن إن دمر وناكسن لو جوريو قبلها وناكسن وطاهرات كعفيفات كأهنا إن رج وناكسن لو حلو أي ليهن ودتك وناكسن إيجا أيا إسله قرآن كسيدا أيو كعبريا وحو كعبريا صالحين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم كوا وناكسن أجوريا يا لير وحكى لما عبريا وحمر والبلسوع العلينيو وناج إيا قيمها إيا دينتا أيا ولا ليال لجا إيجيا ولذلك طبعا دتكو قروحذو مرولبا رجوا عجبساه أو ولا ضبا أرض رجي ضمر ولذلك عمر وحوليه هي رضي الله عنه سيدا aad u jeceshihiin dumar qurux badan inaad guursataan oo dhinac walba ka wanaagsan ayay dumarkuna u jecel yihiin rag wanaagsan oo dhinac walba ka suuban inay helaan walidaalika labada dhinacba wiilka iyo gabadhaba in loo xulo
wanaagga ku habboon iyo cidda ku habboon oo dhinaca diinta looga xulo ayaa asala hadduu qofku isku darsado quruxdii maalkii maxaa la yidhaahdaa wanaaggii kale diintii waa sidii la rabay haddii ay nuqsaan ay jirtana qofku mar walba waxa uu weynaya inay noqoto midda adduunyada ahayd diinta inuusan marnaba weyn maxaa yeelay muxuu macno keenayaa hadduu guurku maalmo intuu daa'imo haddana uu fashal iyo guuldarro ku dambeeyo hadday ubadkii meesha ka dhalanaya uu dayaac iyo meel cidlaa uu ku dambaynayo muxuu macno soo kordhinayaa macaanidii oo dhan iyo wixii hadafkii laga lahay ujeediyadii oo dhan buu luminaya walidaalika say taa u dhicin walaalayaal hadalkayga waxaan kusoo khatimayaa in sidaa loo sameeyo weliba la sahlo nabiga wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam acdamu nnisaa'i barakatan aysaruhunna mu'uuna waxaa ugu barako badan dumarka kuwooda waa maxay ugu meherka fudud ugu qarashka yar aroosyadooda iyo xafalaadkooda qarashka ugu yar lagu qarash gareeyay taa macnuhu dadka qaarkood khalad bay u fahmayaan ma aha nin hanti haysto oo lacag haysto oo ladan inuu maxaa la yidhaha waxoogaa yar inuu bixiyo ma aha waxaa weeye shaygan la leeyahay yusriga iyo fududaynta waa nisbi waxay u taallaa ruux walba iyo tabartiisa kan milyaneerka hantida haysto waxaa la rabaa inuu meher fiican gabadhii siiyo waxaa la doonayaa inuu aroos fiican u dhigo in martabadiisa iyo xoolaha ilaahay uu siiyey wa amaa binicmati rabbika faxadith weeye wax u dhigma inuu u sameeyo liyunfiq ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله متك هدنتنمدا u saaxiib kana waxa la yiri hodantinimadiisa wax u dhigmata habixiyo kan ilaahay uu ku ciriiriyay oo xoolaha hantidiisa xoolihiisu ay yar yihiinna wuxuu ilaahay siiyay waxa ka bixiyo walidaalika in sida ay noqoto mararka qaarkood qofku hadduu lacag tahayo inuu maxaa la yiraahdaa uu bixiyo waa sax inaad sunno xun dadka loo jideeyana ma aha iska ilaaliya nimanka hantida haysta ama waxoogaa ragga kale ka jeebka roon inay sunno khaldan dadka u jideeyaan oo hadhowti bahalkii meherkii iyo xafalaadkii iyo kiirayntii meelihii iyo qarashaadkii meel laga soo celin kari waayo in la gaarsiiyo arrintaasna culayskeeda leedahay oo qof walba waa maxay inuu muraaceeyo jawiga iyo dhaqanka iyo awoodda iyo dadka uu ku hareeraysan yahay in la ilaaliyo walaalayaal waxaan aad u dardaarmayaa arrintani waa arrin runtii markii Yurub la joogo waa arrin daruuri ah waa ogtihiin bii'adan lagu nool yahay dhibka yaala iskuulaadka waxbarashada jaamacadaha koolajiyada dhibka ka taagan iyo sida la isugu maran yahay wadooyinka iyo meel walba in marka hawshani waalidiintu intay ka arrinsadaan inaad waxa weeye si qurux badan aad barnaamijkani idinkoo sharciga iyo dhaqanka iyo dhinac walba ka eegaya inaad fududeysaan ayaan dardaarmaya waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa reerkan cusub inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala barakeeyo inuu reer raxmad iyo naxariis iyo sakanka iyo deegaanka ilaahay uu tilmaamay inuu maxaliya ka dhigo reer barwaaqo ku noolaada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo reer ilaahay ubad duriyad khayr qabo maxaa la yiraahdaa ka beera inuu ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa intay soo agaasintay intii ka soo shaqaysay maamulka masaajidka dhammaan jazakumullahu khayran sidan quruxda badan ee waliba munkar yarida shar yarida waxa aan ka shaqaynayno khayr uu yahay goobta aan fadhino goob khayr ay tahay hadallada iyo sida loo agaasimay si khayr badan oo qurux badan ay ku dhacayaan aan iska ilaalina masjid baan fadhinaa wixii hafawaada iyo waxa naga dhacaya aan iska ilaalino maxaa la yiraahdaa goobtani iyo sharafteedii aan ilaalino barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran جزاه الله خير الجزاء شيخنا الفاضل شيخ عبد الولي كلمة قيم كله ونوسو جديي وحن مركر لا هي ولالكاس خليف يوم الخير بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إنه اسكو خيريه وبد خير قبا أو كلاسيه إلهي وحن كبر إنه أمضنا إنه إلهي يسوع عليه إن إلهي أمضنا وبرعد سمريه هذا بانسين دونا إن شاء الله كل وحي وكسو ختم دونا سيانه إن شاء الله بارك الله جزاهم الله خير الجزاء علماء إلهي ميزان كود حسنات كهو صار دم بجود كي والد كود الله كود عفو هذا القيمة بدن بينو جديين أن هذا اللي يروى كفتنا وندم بلهين إن شاء الله كلمات أضيتني ما رتي أحمدي بين نصينا إن شاء الله هدي الله يدمه يرده كبعدنا كلمة الشكر أرجو موسى وكيلة تنجدين دونا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هذا ما لين ما أنت ما بسوين لكن صاحب كاي موسى سيرارة أرنت وط لكن وحن ولي
مساعد كان توم سنة واجوه ما أقبشي أقبلي أف صومال ليلو شيء جري ما أنت لكن سيدي أي نكاح أسوداعي سيدي أركي جرنوا أقبلت النكاح وتزويجها عن إحجر وأقبلي الإجوان أقبلي شيخ عبد الولي نوا ماسية أدبا وفرح سنة مير كان هذا وفرحي مير كيل ربوا تمشي حالات ملشين قال ملشين يقال ملشين لكن بس على شيء تم سدح كون أو يورو على شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هذا شيء كذا سعد وفرحي شيخ عبد الولي نوا ماسية مركز سودا بعد إن شاء الله أولادنا خير بقى ورجينا رالنا هذا أنا أحمد ليلي بسم الله صحوي حوغا فرحت وغور ويه إن لسك فرحو وآد بوفي عنتها هاي كلام عن لغوي لهاين مساجدنا اللي جوغو وفضل إلهي ميزان كودا الله حسنات كهوصار علماء وين حسوسية نقول هذا كله دعاء بيدون ونظرنا هاي كل جين waxaan u jeedinaynaa kalimatu shukr anigoo ku hadlaya Muuse Seeraar afkiisa ku hadlaya waxaan kalimatu shukr u jeedinaynaa maamulka masaajidka ducaada masaajidka odayaasha masaajidka inta ka soo qayb gashay xafladan intii ka soo shaqaysay xafladan habeenaya maalin u soo jeeday waana u ducaynaynaa waxaan leenahay dambigoodii kii waalidkooda Allah ku dhaafo miisaankooda xasanaadkana Allah u saaro ilaahay waxaan ka baryaynaa guurkaas guur sida culimadu ugu ducayso dadkooda ugu wada duceeyay guri lagu farxo oo lagu waaro oo lagu baraarobo inuu ilaahay ka dhigo رافيلان وحنا شاقي وذاتكي إنه إيمان جري مريكن كا إيمان جري آمين تويدين دبتا علماءنا هذا ويدين شاكت وين نقول وين سارقنا إن أمبرنا إنه واجب آمينك آمين هلا ده دمدافع الله نفسيه ميزان كنا حسناتك الله نوصاره خيرك الله يسكو بركيه دعوة الدعاء إلهي سبحانه وتعالى كرها وقاضو صومالي إلهي قلوبته ده يسوع مبرعد الله يسمريه soo dhawaada waxa la wixii aad tabanaysaan waxaan rajaynaynaa insha Allah wixii naga dhiman hada bini'aadamku ma dhamaystirnaa inaad raali noqotaan haday noqoto daahid hadaad wax tabaysaan daldalool hadaad aragtaan insha Allah kulligiin aad baad u mahadsantihiin noo dulqaata maarata haduu alla ku rooyahay soo dhawaada insha Allah aad baad u mahadsantihiin bahda shaqaynaysa insha Allah si qabow oo wanaagsan iyadoo la fadhiyo oo masaajidka la wasaqaynin oo maartay aan waxba la yeelin insha Allah hala fadhiyo bixi hala keeno maartay qashka lagu gur lahaa iyadoo la fadhiyo nidaamka hala ilaaliyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baa u mahadsantihiin dhageysigiina wacan بالفرحة نحيي كل من جاي يهني بالفرحة نحيي كل من جاي يهني ونزف التهاني لك يا أحلى عريس ونزف التهاني لك يا أحلى عريس بالفرحة نحيي كل من جاي يهني بالفرحة نحيي كل من جاي يهني ونزف التهاني لك يا أحلى عريس ونزف التهاني لك يا أحلى عريس بالفرحة نحيي كل من جاي يهني بالفرحة نحيي كل من جاي يهني ونزف التهاني لك يا أحلى عريس ونزف التهاني لك يا أحلى عريس بالفرحة نحيي كل من جاي يهني بالفرحة نحيي كل من جاي يهني ونزف التهاني لك يا أحلى عريس ونزف التهاني لك يا أحلى عريس بالفرحة نحيي كل من جاي يهني بالفرحة نحيي كل من جاي يهني ونزف التهاني لك يا أحلى عريس ونزف التهاني لك يا أحلى عريس ونزف التهاني لك يا أحلى عريس بالفرحة نحيي كل من جاي يهني بالفرحة نحيي كل من جاي يهني ونزف التهاني لك يا أحلى عريس
ونزف التهاني لك يا أحلى عريس. شيخ يونس